ma ogtahay sababta dad badan ay u bilaabaan qorshayaal badan laakiin aysan weligood u dhamayn? waxay bilaabaan jimicsi cusub, barasho xirfad cusub, ganacsi cusub ama YouTube channel cusub, laakiin dhowr maalmood kadib ama toddobaadyo kadib way iska joojiyaan. farqiga u dhexeeya dadka guuleystay iyo kuwa kale maaha inay ka aqli badan yihiin, farqiga waa hal shay oo kaliya: waxay dhameeyaan waxa ay bilaabaan. maanta waxaan kula wadaagi doonaa 7 tilaabood ka caawinaysa inaad dhameystirto wax walba aad bilowdo. qodobka koowaad: ogow sababta aad u bilowday. dad badan waxay diiradda saaran wax ay qabanayaan laakiin ma fahmaan sababta ay u qabanayaan. isweydii, maxaan tan u bilaabay? sidee ayay nolosheedu u bedeli doontaa? maxaan luminayaa haddii aan iska daayo? marka aad sababtaadu xog badan tahay, dhiirigelintu way sii jirtaa xitaa maalmaha adag. xusuusnow, sabab xooggan waxay dhalisaa go'aan adag. qodobka labaad: bilow yar. dad badan waxay isku dayaan in hal maalin gudahood wax walba bedelaan. tusaale ahaan, waxay yiraahdaan 2 saac maalin kasta ayaan wax akhriyaa. maalintii saddexaad way daalaan. halka ay taas ka ahaan lahayd akhri 10 daqiiqo, samee hal bog, hal tilaabo qaad. horumarka yar ee joogtada wuxuu ka fiican yahay dadaal weyn oo hal maalin ah. qodobka saddexaad: samee jadwal cad. haddii aad qorsheynaysid waqtigaada mashquulka, wuxuu xadidi doonaa waqtigaada. qor goorta aad shaqeynaysa, muddada aad shaqeynaysa, waxa aad saxda aad qabanaysa. tusaale ahaan, 2 saac ilaa 3 saac subaxnimo waxaan qorayaa script video, ma ahan wax yar ayaan shaqeyn doonaa. caddeyntu waxay dhalisaa ficil joogto ah. qodobka afraad: ka saar waxyaabaha ku mashquulinaya, telefoonada, social media, notificationska, saaxiibo mashquul badan. marka aad shaqeynayso, dib notificationska, telefoonka meel fog dhig, hal shay qabo ama hal shaqo kaliya qabo. maskaxda ma jeclo kala qaybsanaanta, diiradda ayay dhalisaa natiijo. qodobka shanaad: ha sugin dhiirigelin. dad badan waxay yiraahdaan marka aan dareemo dhiirigelin ayaan shaqeyn doonaa, laakiin dadka guuleystay waxay shaqeeyaan xitaa marka ay dareemaan. dhiirigelintu way timaadaa wayna tagtaa, laakiin nidaamku wuu sii jiraa. abuuro caado. caadadu waxay ka awood badan tahay dareenka. qodobka lixaad: u dabaaldeg guulaha yaryar. mashruuc weyn wuxuu ka kooban yahay 100 talaabo oo yaryar. marka aad dhameyso hal cutub, hal fiideo, hal mashruuc, naftaada u hambaliyay. guulaha yaryar waxay maskaxda siinaysaa tamar ay ku sii wado shaqada. qodobka 7: dhamee ka hor inta aadan bilaabin midka kale. mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn: bilow mashruuc kale, ugu dambeyn waxba ma dhamaadaan. xeer fudud: finish first then start again. hal mashruuc, hal yool, hal guul. haddii aad rabto inaad noqoto qof noloshiisa wax badan bedela, ha noqonin qof wax badan bilaaba, ee noqo qof wax dhameeya. markasta xusuusnow, sababtaada ha iloobin. bilow si yar, samee jadwal cad, ka fogow mashquulka, ku tiirsanow nidaamka ee ha ku tiirsanaan dhiirigelinta. u dabaaldeg horumarka, dhameey waxyaabaha aad bilowday. guushu ma timaado marka aad bilowdo, guushu waxay timaadaa marka aad dhameyso. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe, like, share. waa xaggaada insha Allah. waa inoo mar kale muuqaalka xiga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.